رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyay shirka bilaha ah ee isku xirka bahda cadaaladda dalka sida warbixintan ay noogu sii faahfaahinaysa Maryan Xuseen Jibriil. رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay shirka bilaha ah ee isku xira bahda cadaaladda dalka oo looga hadlayo dardargelinta qorshaha horumarinta hanaanka cadaaladda dalka fulinta hoggaanka maxkamadaha la dagaalanka dukumentiyada been abuurka ah iyo qorshaha dib u habeynta arrimaha dhulka. Gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada guud ee shirkan looga hadlayo. runtii shirkan waxa weeye shir bilaah oo ay iskugu yimaadaan hay'adaha cadaaladda ku lugta leh haddii ay noqoto garsoorka oo maxkamadaha iyo xeelaalinta ciidamada booliiska maamulka gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda ciidanka asluubta iyo ra'iisul wasaaraha oo isaguna runtii jeergareeyo ka soo qayb gala. ujeedooyinka ugu waaweyn ee shirkan laga leeyahay waxa weeye sidii dib u habeynta cadaaladda loo dardargelin lahaa. muddadii aan xilka qabtay nimid waxaan ku dadaalay in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo cadaaladda. marka waxa noo soo baxay cadaaladdu inaanay ahayn oo kaliya ta maxkamadaha ee loo baahan yahay dhammaan hay'adaha cadaaladda lugta ku leh in dib u habeyn lagu sameeyo isla markaana in la abuuro jawi wada shaqayneed oo wanaagsan oo ka dhaxeeya hay'adaha si ay u fududaato cadaaladii loo hirgeliyo. arrimaha ugu waaweyn ee maanta shirkan si gaar ah looga hadlayo waxa ka mid ah fulinta xukuumadda iyo go'aamada ka soo baxa garsoorka oo ah meelaha ay bulshadu cabashada badan ka qabto. marka waxa la isla qaatay in dhammaan xukuumadda ka soo baxa garsoorka sida ugu fudud loo fuliyo. waxa la isla jeexay wadadii lagu fulin lahaa oo garsoorka inuu hogaamiyo ciidankii booliskuna uu ka kaalmeeyay garsoorka fulinta go'aamadaas. arrintaas oo runtii aan isleenahay wax badan ay ka taraysaa ummaddu inay hesho cadaaladda ay u ooman tahay ay raadinayso. arrinta labaad iyaduna muhiimka laga hadlay waxa weeye la dagaalanka been abuurka. waxa runtii dhibaatooyinka waaweyn ee dalka ka jira ee garsoorka haystay cadaaladda caqabadaha ku ka mid ah in dadka in la sameeyo dokumentiyo badan oo been abuur dokumentiyadii dawladda. markaas sidii taa loola dagaalami lahaa ayaa iyadana laga hadlayay. waxa la isla qaatay in laga soo bilaabo booliska xeelaalinta maamulka gobolka iyo maxkamaduhu dhammaantood inay si wadajir ah ula dagaalamaan maxaan ku dhahdaa been abuurka isla markaana haddii laba dhinac ay la yimaadaan dacwad madani ah oo la ogaado mid ka mid ah inuu document been abuur ah in dacwadda madaniga inta dhinac la dhigay dacwad ciqaaba lagu ogaado loo gudbinayo hay'adaha ay khusayso isla markaana halka lagu sameeyo dokumentiyada been abuurka laga bilaabo la dagaalanka been abuurka hay'adahaas marka ay iska kaashadaan. waxa iyagana laga hadlayay dib u habeynta arrimaha dhulka oo iyaguna runtii ah meelaha dhibaatooyinka waaweyn ay ka jiraan oo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose iyagana loo xil saaray iyo maxaan ku dhahdaa dokumentiyadii dawladdu lahayd ee dadku shacabkii gacanta ku hayeen soo celintoodii. arrimahaas ugu mudnaa arrimaha maanta laga hadlayay laakiin shirku waa shir bilaah oo joogta oo soconaya oo mar walba laga hadlayo dib u habeynta cadaaladda dalka guud ahaan. Maryan Xuseen Jibriil, Som News TV, Muqdisho.